munaasabad ballaadhan oo markii ugu horeysay lagu soo bandhigay buugga layliga saxafiga oo qoray wariye Axmed Maxamed Kismaayo oo lagu qabtay Hotel Mansour ee magaalada Hargeysa ayaa waxaa ka qayb galay saxafiyiin waaweyn oo rugcadaaya oo hore uga shaqayn jiray idaacadda BBC-da iyo warbaahinta kala duwan. qoraaga buuggan ayaa sheegay inuu qoraalkiisa waday muddo kor u dhaafaysa 7 sanadood oo wax badan ka bedeli doono mihnada saxaafadda Soomaalida oo dhinacyo kala duwan uu ka eegay. saxaafaddu qiimaha ay bulshada u leedahay iyo sida ugu fudud ee looga faa'iideysan karo. ugu horreynna halkaasi waxaa ka hadlay gudoomiyaha ururka saxafiyiinta Soldier Maxamuud Cabdi Jaamac Huto iyo wariyaasha kala duwan oo ka mid yahay Cabdisalaan Hereri, Siciid Cali Muuse iyo Axmed Siciid Cige. Axmed Maxamed Cali Kismaayo aad baan ugu mahadnaqayaa waayo way yar tahay in la helo mihnada saxaafadda runtii buugaag ku tacalluqda iyadoo aynu leenahay runtii wariyaal ama aynu nahay dadkii ugu horeeyay warbaahinta Soomaaliyeed runtii ku abtirsada barnaamijka BBC-da markaa wada ayaa aad ka dareemaysaa runtii in Soomaaliland ama Hargeysa ay tahay buddiga saxaafadda Soomaaliyeed runtii oo ahayd BBC-da cidii ugu horeysay ka hadashay inay ahaayeen wariyaal raadiyo Hargeysa ka tirsanaa. runtii farxad bay noo tahay in Axmed Kismaayo oo runtii buuggan qoray uu caawa bahda saxaafadda Soomaaliland runtii juhdi geliyay isla markaana ay ka faa'iideysan doonaan runtii xogta iyo casharada iyo duruusta uu Axmed halkan ku soo ururiyay runtii oo ay baahi weyn suxufiyiinta Soomaaliland iyo guud ahaanba saxafiyiinta Soomaalida runtii buug afkii hooyo ku qoran runtii ay helaan. buuggani sida raggii ugu horreeyayba sheegeen waa buug aad iyo aad loogu baahnaa oo soo baxay waqtigii loo baahnaa. duruufaha saxaafadda Soomaalida guud ahaan maanta ay ku shaqayso iyadoo dabcan haddana ay kala duwan yihiin meelaha laga shaqaynaya. waxaan u malaynayaa waxyaabo fara badan bay iska shabahaan. intii ugu horreysayna dhowr goor waxay carabka ku dhufteen in rugcadaagii saxaafaddu uu joogo. waxaan libin weyn ku siinayaa waa tii la odhan jiray wixii qoran baa dee quruuma hadhe muxuu hadal qaaya leeyahay. inkastoo hadalka qudhiisu qaaya leeyahay oo aanan maaragtay isaga qudhiisa yasaynin haddana dee kanubaa raandhiis yeelanaya. buuggan layliga saxafigan u ishaayaan yara mariyay waxyaabo badan oo academically oo ah mihnadii saxaafadda oo ilaa jaamacadaha ilaa tababarada la bixiyo ama hay'adaha warbaahinta waaweyn ay bixiyaan ama se macaahidda caalamiga ay bixiyaan ayaa ku jira oo ay number 1 ay u tahay xagga warka sourceski warka ama masaadirul akhbaar la yiraahdo sidaad u sugi lahayd oo aanad adigu iska samaysan lahayn oo aad dhinacii kale balance aad u samayn lahayd oo warka marka la helo ayaa dabadna article-ka la sameeyaa ama maqaalka wax la yiraahdo markaas faalada la sameeyaa markaas reportage-ka la sameeyaa ama taxqiiq saxafi wax carabidana lagu yiraahdo marka waxyaabo badan oo faa'iido ah oo dhalinyaradan dambe ay ka faa'iidi karto oo de luqadiisii ugu qoran qofkii Soomaaliga ahaa ayaa jira. waxaa ku jirtay buuggan qoraalkiisa qodobadii uu akhriyay waxaa ka mid ahaa anshaxa suxufiyiinta taas oo mid aad loogu baahan yahay. runtii wax badan oo anshaxa ah ayaa muhiim ah. doorashada soo socota u dheeda anshaxa suxufiyiinta ayaa loo baahan yahay in laga qayb qaato inta ayran gashada u dhaydo oo ay noqoto mid de miisaaman oo isu dheelitiran oo waxyaabo qalad ay noqonin. waxaan aad uga naxaa waxyaabo badan marka la qoraayo horta meesha ugu daran ee la ka haysto waa xagga af Soomaaliga haddii uu nahay suxufiyiinta la isku mid baa nahay waxaan qoro suxufi baa qoray af Soomaaliga waxaad moodaa inuu ka sii dhimanayo. Xamse Xirsaxayd Saab TV Hargeysa.